وقفك هدور رجدي طول الأمل وإسراء وحبضا قد نوران دوتا إن شاء الله عمل قصته تبوري دونا حق دمالك هقاقي دون تابوك فكري ككواد حقيقة الإنسان بني آدم كي يقابك الله وأبوري بني آدم كو حدوني دو جوغان لا يتحامه حرية با إلهي سيئي حان الله أبو رقاب وحضورا كره لكن دورشده ودورنا يا وحي وباهنت يا عقلي يا أقون يا إرادة قرآن أصل وحا النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث كبخاري ورنا يا عبد الله بن مسعود وكورنا يا النبي عليه الصلاة والسلام النبي قال وحوش حيبود خط مربعة سكوير خذا فرقيس لابو سميي دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام برتكو هذا خط كلا كان حصاري فرقيس كخط كي ها أيو خط كلا كان حصاري خط كان دحى حريجمو ويالي waxaa ku tilmaamay markaas waxaan afarta hareerood kaga wareegsan qofka waa ajashiisi waa geeridii oo aanu dhaafaynin khadkan ka dhex baxayna waa amalkiiyo rajada geerida meel ka fog ayuu qofku inta badan ka rajo qabaa binaadamku adduunka wuxuu ka baxaa isagoo wali qabyo arrimuhu ka yihiin isagoo wali wuxuu qorsheeyey ay qabyo tahay buu baxaa waxaa kaloo nabigu xariijimaa yaryara kale ka baxaya ku tilmaamay inay tahay acraadu dunya mashaakilka adduun oo kan xaganayo kani xaganayo kani xaganayo aanu marnaba mashkilad la'aanaynin idan wuxuu xadiidku sawirayaa qofka bini aadamka ah rajada iyo amalka uu qabaa yididiilada uu qabaa inaanay xad lahayn inay cimrigiisa iyo wakhtigiisaba ka dheertay hada huwa al-asl laakiin waxaa la rabaa qofka muslimka ahi inuu mas'alada xadeeyo oo meel ka dhow u arko xaqiiqada labaad aynu tilmaamaynaa waxay tahay geeridu waa alxaqiiqa alwaxiida almuctarafi biha bayna annaas waa xaqiiqada bini aadam oo dhammi uu rumaysan yahay cid kastaaba inay geeriyoonayso waxaad garan kartaa un dadka intii kugu hareeraysnayd geeridooda ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku leeyahay isagoo nebi moxamed la hadlaya innaka mayitun wa innahum mayituun innaka mayit waad dhimanaysaa baa la leeyahay waa qasab iyaguna way dhimanayaan kuwan kaa soo hor jeedaana way dhimanayaan kullu man calayha faan waxaa nolosha kor saaran oo dhammi dhammaantood waa dhammaanayaan baa ilaahay leeyahay wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhaaliduun adiga hortaa cid aanu waaritaan siinay ma jirta baa ilaahay leeyahay adigu haddaad geeriyooto mayagaa waaraya baa ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala idan haddaan nebi maxamed sayid alkhalq ilaahay doortay ilaahay ku leeyay waad geeriyoonaysaa waxa ka dambeeyana waa geeriyoonaya gaaladii ku jeesjeesaysee lahayd rayb almanuun baan la sugaynaa iyo waxaan baynu la rabnaa ilaahay wuxuu yidhi adiguna waa dhiman iyaguna way dhiman cid hadhaysaa ma jirto taasina waa xaqiiqo labaad xaqiiqada koowaad waa in adiga rajadaada iyo amalkaagu u dheeriyay xaqiiqada labaadna waxa weeyaan geeridu inay laabudda tahay xaqiiqada saddexaad meesha taalla waxa weeyaan adduunku waa daaru mamar waa dhul la marayo waa meel qof waliba uu soo marayo waad dhalatay dabeetana mara yar baa lagugu duuduubo waxaa la yidhi wiil baa reerka ku soo kordhay gabadh baa soo korodhay berrina waad baxaysaa mara kale intay kugu duuduubaan bay odhanayaan waa mayda xabaasha geeya adoo qaawan oo mara yar lagugu duuduubaad imanaysaa
adoo sidii iyo mara yaroo kale lagaa raaciyay baad haddana baxaysaa. idan waa mamar, waa meel aad marayso, waa jid bini aadamku uu muddo dhex soconayo. waxaana ka dambeeyaba rabbi tilmaamaya la kulanka alle, qof waliba inuu rabbi la kulmi doono, in la xisaabin doono, janno iyo naar inay ka dambayso. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum. geeridan aad ka baxsanaysaan ee aad ka rooraysaan waa idinla kulmaysaa. hadday meeli ku xanuunto dhakhtar raadiya, kan raadiya, adduun waxaad haysato ku bixi, waxaad rabtaa bal sidii aad maalmo u sii jiri lahayd ayaad dadaalkeed ku jirtaa. laakiin ilaahay wuxuu leeyahay waa mulaaqiikum, waa idinla kulmaysaa. maxaa ka dambeeya? uma turadduuna ilaa caalimi alghaybi waashahaada fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun. waxaa laydiin celinayaa baa la yidhi caalimu alghaybi waashahaada, allaha waxa maqan iyo waxa joogaba og, allaha aan waxba ka qarsoonayn, allaha og wax kastoo aad samaysay, hadduu yahay waxaad qalbiga ku caqiidayso ku haysatay, iyo hadduu yahay waxaad ficil ahaanba u samaysay, wax kasta oo kaa soo baxay qofka bini aadamkaa rabbiga og. oo weliba ogaan qura maaha, fayunabbi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay leeyahay, oo idin warrami doona waxaad samayseen oo dhan.